filimada Hollywoodka waxaa lagu daawadaa iyagoo ka sheekaynaya suunaamiyada, dhulal go'ay, dabaqyo dumay iyo weliba caalam dhan oo qarsoomay oo biyo ay qarqiyeen. laakiin ka waran sida xaqiiqada weli hore ma u daawatay suunaamiyada iyo weliba duufaanada biyaha wata ee markaasi dabar jaray ama baabi'iya hanti fara badan, dhul fara badanna quruxdii uu lahaa iyo dhismihii ku yaalaba suuliyey. waxyaabo badan oo dhaca ayaa jira sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala dunidan ugu talagalay sunnada kowniga ay ku socoto ama sidii la rabay si aan ahayn uu noqdo. waxaa laga yaabaa in markaasi ay timaado arrin cagsi ah ama dhibaato ah. waxaa ka mid ah waxyaabaha cajiibka ee dhaca dadkuna aanay fahmi karin keliyana ay arkaan marka ay dhacaan duufaanada xoogga badan, buuraha barafyada ah ee soo jaba iyo burkaanooyinka iyo foolkaanooyinka ama dabdhullada. maanta muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa suunaamiyadii ugu yaabka badnaa uguna burburka badnaa taariikhda bashariyadda ama dunida intay dadku noolaayeen. waqooyiga Jabaan 11kii bishii Maarso sanadkii 2011 xawaaraha ay ku socdeen hirarka suunaamiga ee ka dhacay halkan waa waddanka Jabaan. waa halkaa aan idiin sheegay waqooyiga Jabaana ayaa waxa uu saacaddii jarayay 400 oo kiiloomitir iyadoona dhirirka mawjadaha ay gaarayeen 10 mitir. inkastoo hirarkaasi ay ahaayeen kuwo aad uga gaaban ama ka xajmi yar kuwa kale oo dunida ka dhacay, haddana khasaaraha ay geysteen ama khasaaraha hirarkan kacay ee suunaamigan uu geystay ma ahayn mid yar oo wuxuu ahaa mid aad u ballaaran. sababta suunaamigan ka dambeysay ka dhacay waddanka Jabaan 2011 waxay ahayd dhulgariir dhacay oo darajadiisu gaartay 9. dhulgariirkaas ayaa waxa uu sababay in markaasi ay kacaan suunaamiyadan, sidoo kalena hirarkan aadka u dhaadheer ay baabi'iyaan hanti fara badan oo laga lahaa waddankaasi Jabaan. ogowna dhulgariirkaasi 24 kiiloomitir dhulka wax ka hooseeya ayuu ka dhacay. haddii uu ka dhowaan lahaa ka waran wax badan ayuu tirtiri lahaa. runtii waxay ahayd arrin kaarisa oo musiibo ah sidii Hiroshima oo kale, iyadoona khasaa'irta maadi ahaaneed ee ka dhashay suunaamiyadaas ay gaareen 235 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. intaa waxaa sii dheer khasaarooyinka faraha badan ee kale ee suunaamigu uu geystay, midaasi oo aan lagu qiimeyn karin wax lacaga. Krakatoa, Indonesia 27kii bishii Abriil sanadkii 1883 dhacdada suunaamigan waxaa laga jilay oo laga sameeyey mid ka mid ah filimada Hollywoodka. sababtoo ah siday u muuqatay ama ay u dhacday waxay ahayd mid khayaal ama mala awaal u eg oo markaasi dadku aanay rumaysanaynin inay dhab tahay. 27kii bishii Abriil sanadii 1883 waxaa kacday foolkaanadii Krakatoa. dabdhulkaas ama foolkaanadaas oo ahayd tii ugu weyneed ama ugu ballaarneed ama ka mid ahayd kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay kowkabkeenan dhulka, iyadoona foolkaanadaasi sababtay inay kacaan hirar waaweyn oo xitaa dhirirkoodu dhaafay ama uu gaaray 37 mitir. arrintaasi waxay ahayd mid cajaa'ib leh, run ahaantiina ka yaabisay dadyoogii caalamka ee xilligaasi joogay kana war helay suunaamigan cajiibka ah ee ku dhuftay waddankaasi. iyadoo suunaamigaasi hirarkaas kacay ay markaas sababeen burburka magaalooyin sida Angar iyo Merak, iyadoo ay jirto in la diiwaangeliyey khasaarooyin kale oo ka dhacay meelo ka fog halka uu suunaamigu ka dhacay, sida arrintii ka dhacday Sri Lanka oo kale. webiga Inshonada, Jabaan 20kii Sebtembar sanadkii 1498 suunaamigii xilligaasi waxa uu dhacay waqti ay adag tahay in la xadido halka dhulgariirku ka dhacayo ama xitaa la sii saadaaliyo, balse xukuumadda ayaa diiwaangelisay dhacdooyinkii xilligaasi dhacay, iyadoona la sheegay in dhulgariirkii dhacay markaasi darajadiisu ay gaartay 8.3, taasi oo kaliftay inay kacaan hirar waaweyn oo aad u khatar ah, baabi'iyeyna meelo fara badan, iyagoona saameeyey magaalooyin sida Kii, Mikawa, Sorojo, Izo iyo Sajami. sidoo kale hirarkaas xoogga badan iyo suunaamigaas waxa ay burburiyeen dhextaal u dhaxeeya ama darbi weyn oo u dhaxeeyay harada Hamaan iyo badda. Indonesia 26kii December sanadkii 2004
sunaamigan ka dhacay waddankaasi waxa uu ahaa mid aad u culus oo geystay khasaarooyin fara badan iyadoona markaa uu sababay dhulgariir heerkiisu gaaray 9.1 oo ka dhacay dhulka hoostiisa 30 kiilomitir waxayna arrintaasi kaliftay inay kacaan hirar waaweyn oo sarakacoodu ama dhirirkoodu uu gaaray 50 mitir waxauna ka mid ahaa sunaamigan ka dhacay waddankaasi mid ka mid ah sunaamiyadii ugu darnaa dunida iyadoona uu geystay khasaarooyin ballaaran sidoo kalena laga diiwaan geliyey dhacdooyin fara badan iyo muuqaalo iyo sawiro dhowr ah kuwaasi oo ilaa maanta ay dadku hayaan oo ay wada garanayaan dibna ay u milicsadaan khasaaraha uu geystay sunaamigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ama lagu qadaray wax gaaraya $10 bilyan oo doolarka Mareykanka ah Nankayado, Japan, 28 Oktoobar 1707. Waddanka Japan waa mid ka mid ah wadamada ugu badan ee markaasi qaabila ama la kulma dhulgariirada, sunaamiyada, daadadka faraha badan iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee markaasi dunida ka dhaca. Sababta taasi keentana waxa ay tahay waa juqraafi ahaan halka uu dhulkani ku yaalo, iyadoona halkaasi ay tahay meel ay ku badan yihiin dhulgariiradu. waa waddan markaasi laga filanayo inuu u dulqaato musiibooyin iyo weliba kawaarith waaweyn oo ka dhacda waddankaasi u badan yihiin dhulgariirada waxaana ka mid ah wixii dhacay 1707 dhulgariir awoodiisu gaartay 8.4 ayaa halkaasi ku dhuftay isagoo keenay khasaarooyin aad u ballaaran Lisbonal Portugiiska 1 November 1755 dhulgariir awoodiisu gaaraysay 8.5 ayaa waxa uu sababay kadib markii uu dhacay isku xigashada 3 dhulgariir oo kale oo tsunami sababay kuwaasi oo khasaare baahsan ka geystay waddanka Portugiiska kuwaasi oo garaacay kuna dhuftay magaalooyin xeebadyada ku yaala waddankaasi Portugiiska iyo koonfurta waddanka Spain hirarka markaasi ay sababeen dhulgariiradaasi ayaa waxa lagu qadarayay ama la filayay oo la saadaalinayay in dhirirkoodu gaari karo 30 mitir iyadoona khasaare fara badan halkaasi ay ka geysteen tsunamiyadu iyo weliba hirarkan waaweyn ee kacay ee martay ama dul maray wax alaala wixii ka hor yimid inkastoo maanta la hormaray tiknoolajiyaduna ay marayso halkeedii ugu sarreysay lana filanayo inay hore u sii socoto haddana dhulgariiradu iyo waxyaabaha dabiiciga ahi in badanba waa waxyaabo la filan karo inay markasta dhacaan bal filo cabsida ay dareemayeen dadka ay markaasi ku dhaceen dhulgariirada noocaasiya tolow heerkee bay gaari kartaa dhab ahaantii qofkii joogay ayaa dareemi kara qof malaysanaya ama markaasi takhayulayana ma suuragelayso inuu dareemo isla dareenkii ay dareemayeen dadkii ay ka dul dhaceen dhulgariiradaas ama hirarkaasi ay guryahoodii qaadeen San Rico, Japan, 13 Agosto sanadii 1896 waddanka Japan sidaan hore kuugu sheegaba waxaa ka dhaca dhibaatooyin fara badan waxaana ku dhuftay xilligan ama taariikhdan aan kuu sheegay dhulgariir awoodiisu gaaraysay 7.6 sidoo kalena sababay inay kacaan hirar waaweyn mararka qaar waxaad is oran kartaa dhulgariirka iyo hirarka uu kicinayo miyay iswaafaqaan oo miyay isku saabsan yihiin oo xiriir ma ka dhaxeeya laakiin waa maya iyadoo ay jiraan dhulgariiro ka waaweyn kan 7.6 ah oo markaasi xitaa awoodoodu dhaaftay ama ay ka gudubtay 8 darajo haddana waxaa dhacaysa in dhulgariir markaasi ka darajeerkan kale uu sababo hirar waaweyn oo gaari kara ilaa 20 mitir ilaa 25 mitir mararka qaarna waxaa dhacda inay intaa dhaafto tusaale ahaan dhulgariirkan ka dhacay waddanka Japan ee heerkiisa ama darajadiisu gaartay 7.6 waxa uu sababay inay kacaan hirar mitirkoodu gaarayo 38.2 markaasi mitir iyadoona uu geystay khasaare aad u ballaaran balse arrinta xiisaha leh waxay tahay in dawladda Japan ay diiwaan geliso dhammaan sawirada fiidiyoyada iyo kilibyada laga hayo dhacdooyinkan dabiiciga ah ee markaasi aafeeyay waddankaasi taasina ay noo sugayso markaan warbaahin ahaan u hadlayno in arrinta aan ka sheegno xaqiiqada sidoo kalena aan lagu xeeldheeraan waqooyiga Chile 13 Agoosto sanadii 1868
dhulgariirka halkan ku dhuftay waxa uu ahaa mid ka mid ah dhulgariirada ugu saamaynta badan sidoo kalena ugu burburka badan ee ka dhacay Latin America gaar ahaan waddankan aan ka hadlayna ee Chile iyadoo heerka awoodda ee dhulgariirkani uu gaaray 8.5 waxaana la sheegay halka uu ka dhacay inay ka fogeed biyaha gobolka gaar ahaan meel ka fog xeebta Arica waana dhul xilligaasi ama waqtigaasi raacsanaa ama ka tirsanaa oo lagu xisaabin jiray dawladda Peru balse maanta waxaa lagu tiriyaa qayb ka mid ah dawladda Chile hirarkii uu sababay dhulgariirkii dhacay xilligaasi waxa uu dhererkoodu gaaray 21 mitir iyagoona saameeyay meelo fara badan balse arrinta cajiibka ah ee la yaab kale waxay ahayd in markaasi ay dhibaatadaasi ama dhulgariiradaasi soo noqnoqdeen muddo 3 maalin ah halka biyuhuna ay ooda jabsadeen oo xitaa ay gaareen xeebaha badweynta degan ee markaasi Ameerikada Koonfureed tsunamigaasina saameyntii ka dhalatay waxay ahayd mid ka mid ah saameynihii ugu xoogganaa iyo khasaarihii ugu dhibka badnaa ee dunida qayb ka mid ah soo maray qaliijka Iisa Japan 18kii bishii January sanadii 1586 markan halkan waxa ka dhacay waxay ahaayeen wax cajiib ah burbur zaa'id ah khasaare fara badan waxaana lagu qiyaasay awoodda dhulgariirka ka dhacay halkan ama ku dhuftay 8.2 iyadoo Chile wixii ka dhacay ay ahaayeen mandiqad hooseysa oo ay garaacayaan hirar sareeya halkan waa mandiqad kaamil ah oo dhameystiran oo markaasi tsunami uu dhulka la galay iyadoona dhirarka hirarka kacay lagu sheegay ama lagu qiyaasay 6 mitir arintani waxay noqotay arin cajiib ah maadaama halkan ay ka dhaceen khasaarooyin fara badan oo ballaaran sababtoo ah tsunamiyadan ayaa waxa ay sababeen in markaasi harada Biwa ay samayso daadad iyo biyo fara badan oo dhankeeda ka yimid kuwaasi oo sii siyaadiyay ama sii badiyay khasaaraha hadda muuqaalkeena ugu dambeeya waxaan ku soo qaadan doonaa tsunamigii ugu weynaa ee markaa noloshaada aad maqasho ama dunida ka dhacay nambarada aan sheegi doono dhab ahaantii waxay idinku sababi doonaan cabsi daran sidaa daraadeed ha malaysanina in markaasi tsunamiga hadda hortiina uu ka dhacayo ama uu waddankiina ka dhacayo Firozer Alaska 9kii bishii July sanadii 1958 halkan waxaa ka dhacay arrin aad u cajiib ah kadib markii buuro baraf ah ay soo wada dumeen taasi oo keentay inay soo dhacaan 30.6 milyuun oo dhagaxyo ah dhagaxdii barafkii iyo biyihii ayaa isdhex qaaday midaasi oo keentay in arrintu u ekaato mid aan xitaa la malaysan karin 914 mitir ayay dhagaxdu ka soo dhacayeen iyagoo biyaha dhex qaadaya iyadoo intaa kadib tsunamigii dhacay uu ahaa mid xitaa aan la barbardhigi karin tsunamiyadii ka dhacay dunidan ama taariikhda inta la ogyahay heeray gaareen sare joogga hirarkii tsunamigan wax ka badan ama gaaraya 524 mitir haddaba malayso nambarka intaa la eg khasaaraha uu geysan karo balse falilaahi alxamdu inta badan khasaaruhu waxa ay ku dhacaysay oo kaliya geeda badan ay dhulka ka rujiyeen oo biyahan iyo dhagaxdan iyo barafkan isisitaa ay qaateen iyadoona mandiqadii oo dhan muuqaalkeedii iyo qaabkii ay u ekeyd oo dhan uu isbedelay run ahaantii waxay ahayd arrin cajiib ah waa tsunamiga dhacay 1985 wuxuu ahaa tsunamigii ugu khatarta badnaa ugu cabsida badnaa uguna cajiibsanaa inta taariikhda bashariyadda la ogyahay haddaba intan ayuu maanta muuqaalkeenu ku egyahay saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka ogaalka dunida barnaamijkeena waxaan ku soo daraynaa qayb yaroo su'aalo ah oo laydinka doonayo inaad jawaabahooda inoogu sheegtaan qaybta kommentiga lamana ogola inaad jawaabta dib u qoraal ku samayso amaad ku noqotood wax ka beddesho keliyana jawaabta si toosa u bixi adigoo isticmaalaya far la fahmi karo oo waadixa su'aasheenna maanta waxay tahay waxaad sheegtaa dowladda caalamka ugu yar iyo halka ay dhacdo waxaad nala wadaagaysaa magaceeda iyo weliba halka ay caalamka ka dhacdo intaas ayuu ku kooban yahay muuqaalkeena fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu